bulshada midkii wadi lahaa walaalay lahaa wadankiisimo murashax xildhibaan golaha wakiilada gobolka Sool ee xisbiga wadani Cabdiqaadir Maxamed Hagar Dirir ayaa si heersare loogu soo dhaweeyay degmada Xudun ee gobolka Sool. boqolaal kamid ah taageerayaasha musharaxa ayaa taagnaa hareeraha wadooyinka kuwaas oo muujinaya taageerada ay u hayaan musharaxooda waxayna siteen boorar uu ku xirnaan yahay sawirka musharaxaasi. odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa dhammaan sheegay inay diyaar u yihiin inay codkooda siiyaan musharax Cabdiqaadir Maxamed Hagar Dirir. Qaadir Maxamed Hagar Dirir oo aanu ku soo dhaweynay degmada Xudun diyaarna u nahay hadii Ilaahay yiraahdo inaanu u codayno oo aanu sharaxnay annagu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee baaxadda leh ee macafardihii u soo baxeen dadweynihii ugu soo baxay waxaan leeyahay xusbiga hambalyo Cabdiqaadir waxaan leeyahay hambalyo noqda kuwii guuleysta. Soomaaliland 30 sano dhisan tahay laba xisbi baa soo xukumay xisbi inaga ku cadfiro weyn u diidno wuxuu ahaa udub isagoo ina raba oo xitaa ila dagaalamin baynu inagu diidnay wayna nabsiyay asaga ragiisi waynu diiday waana nabsiyay danta degmada danta gobolka iyo dhammaan waaxiga gobolka Sool iyo inta ku hareeraysan maanta warqada iyo codkaas u hiilin kara iyo Cabdiqaadir oo soo baxa aad iyo aad baan ugu kalsoonahay nimankaan u soo xulanay labada arrin xusbigana waxaanu ka codsanaynaa inuu aad iyo aad u soo dhaweeyo. salaamo dhamaantiina waxaan ka soo dhaweynaynaa Cabdiqaadir Maxamed Hagar oo musharaxa xusbiga wadani oo si weyn oo ma sha Allah ayaan dooxada ku soo dhaweynayno iminkana waxay noo soo jira ma sha Allah waxaan u rajaynaynaa guul sida u khayr waad mahadsantihiin aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa dadku way istaba jooga magaaladii baa leena ka sugayaa halkan waa horbaxayay baad ahaydeen kelmadahayga xagga damaanu ka horan doonaa. gabagabadii musharax Cabdiqaadir ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono baahiyaha deegaanka hadii ay codkooda siiyaan dadweynaha ku dhaqan degmada Xudun. bal baara ragga tartamaya bal nin maalin deegaankan ka hadlay waxa weey hadaad soo heshaan aniga mooyee waxa weey beenawaas baana ay baabixiya waxa Ilaahay u qorin heli maayo ma noqonayo kuwa masaakiinta ee mushaarka qaata wallahi hadaa waxba ka qaban kari waayo hortiina aan imanaya waxa ma la qaaday inaan hortiina iskaga tago risqiga Ilaahay baa bixiya alceeb baa taagantay waxaad ugu dardaarmayaa maalinta koobayso May idinkoo midaysan oo isku duuban meesha waxa weeye hadaan idin jilciyo dhibaatooyin badan baa loogu talagalay waxa loogu talagalay hal xildhibaan laga soo saarin deegaanada kale mid walba xildhibaan laga soo saarto dadka halka la isla dhacay dadka helka baa la iska daba keenay dad isjecel oo qaarkood aysan waxba doonayn baa leeyahay wax doonta dadkii baa la isku mashquuliyay haddaan dadka go'aan laga qaadan oo la oran wariyaa maanta mudana waxa weeye madaxaynu isla galeynaayo waxa weeye waxaynu wala isgaroobayaan. Cabdiqaadir Maxamed Hagar Dirir ayaa ka mid ah musharaxiinta dhalinyarada ah ee sida weyn uga dhex muuqda ololaha doorashada golaha wakiilada ee gobolka Sool. Muqtar Cabdi Jaamac wararka Hon Cable Laascaanood.